Somaliland Axmed Siilaanyo khudbad uu u jeediyay shalay baarlamaankiisa wuxuu ku qiray in dib u dhac ku imaanaya doorashadii madaxtooyada iyo baarlamaanka ee ahayd inay qabsoonto 26 Juun ee sanadkan 2015 wuxuu soo jeediyay in mucaarid iyo muxaafid wada tashi iyo isqancin la yeesho iyadoo sharcigana la raacayo haddaba xisbiyada mucaaradka Somaliland ee wadani iyo ucid maxay mowqifkooda iyagoo horay guddiga doorashooyinku u cadeeyeen inay u baahan yihiin muddo dheeraad ah oo 9 bilood ah si diiwaangelinta codbixiyaasha loo hirgeliyo sidaas u arkaan xisbiga talada haya ee kulmiye iyo labada xisbi mucaarad muddo kordhin loo sameeyo xukuumadda yaase iska leh eeda dib u dhaca doorashada doodan waxaa qodobadaasi iyo kuwa kaleba ku lafaguraya xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo xisbiga kulmiye ka tirsan xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo xildhibaan Xamuud Cismaan Cigaal oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee ucid waxaa bilaabaya xildhibaan Ibrahim Mahdi Buuba oo ka jawaabaya maxaa tala ah mar haddii doorashadii dib u dhacayso doodan oo ku saabsan dib u dhaca doorashada Somaliland ku yimid la filayay 26 bisha Juun 2015 saddexda xisbi ee golaha wakiilada Soomaaliya ka kooban yahay baan u qabanayaa waxaana ka qayb galay Ibrahim Mahdi Buuba oo isagoo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani iyo Xamuud Cismaan Cigaal oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee ucid iyo Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo xisbiga talada haya ee kulmiye isagoo metelaya Ibrahim Mahdi Buuba aan ku bilaabo Ibrahim madaxweynaha wada degeysanaysay doorashadii dib u dhacay 26 Juun ma qabsoomayso maxaa talada intaanu gelin horta madaxweynaha waxa la gudboonad baynu iscaasilo maanta sababtoo ah 4 jeer hore oo golaha guurtida wakiilada hortooda wuxuu ka sheegay inaan habeen loogu dareenin maalintii ugu dambeysana wuxuu la soo fariistay doorashada qabsoomayso taasi waa nusqaan waxaan leenahay damaanad kale male baashaasi wax noo damaanada garan mayno hadda oo aan ahayn in doorashadii lagu qabto marka ay dhamaato maxaan ku leeyahay diiwaangelinta codbixiyaashu oo ku beegan November marka waxaan leenahay 6 bilood ee siyaadada eegastarada ah degdeg golayaashuna uga saaraan madaxweynuhu amar ku soo bixiyo December doorashada qabsanto Axmed Maxamed Diiriye Nacnac waad degeysanaysaa adigu xisbiga talada haya kulmiyeed betelaysaa waxa la horta afka wadani madaxweynuhu isku macasili karo waxbuu qabtay waxaana doorashada dib u dhigay wadani baa u dhigay saddex waxba xukuumadda laga doonayay kharashkiiba laga doonayay waxa laga doonayay magacaabistii commissionka waxa laga doonayo kale xeerkii golayaasha uu ogaa Ibrahim Buuba halkay dhigeen oo sabab u ahaa in doorashadu dib u dhacdo marka madaxweynuhu afka nin isku macasili karo dad baa doortay uu shaqeeyay waxaan leenahay taas ma qabato halka naga ma qabato madaxweynuhu ku leeyay Ibrahim Xamuud adigu xisbiga wacid bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa la yiraahdaa haddaad waxa doonayso aad waxaad ka fursan weydaa ayaa la yeelaa madaxweynuhu shalayto wuxuu sheegay in arrimaha wax kasta oo dhibaato haday timaado lagu dhameeyo consensus iyo wada tashigu inuu meesha ka madhnaado ma aha saddexda xisbina waxay siiyeen full support bay siiyeen commissionka sidii ay wax u qabsoomayaan ee commissionku ay marka ay keenaan ay dhaahdaan waqtiga ha dhacdo doorashadu aniga waxay la tahay in taas uu lagu talagalo haddii ay dhici kari weydo marka wixii laga fursan waayo hal la yeelo haddii ay noqoto in dawladda wadaaga la sameeyo iyo meel kale looga wareego Ibrahim Mahdi Buuba oo ayada dusha wuxuu ka saaray xildhibaan Nacnac oo yiri wadani lafteedu baarlamaanka bay fadhiyaan gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha xisbiga wadani horta eedaasi lama wadaagna anagu baarlamaanka shaqo kuma lahayn gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee ah gudoomiyaha golaha wakiiladuna shaqo kuma lahayn eeda uu soo jeediyay Nacnac dib u dhaca xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha xubnaha kulmiye ee Nacnac kamid yahay kooka ah mas'uulka ah xukuumadana ku soo amraysay in dib loo rido waxa ka warhaysan xitaa komishiga doorashooyinka ansixintoodii markii la ansixinayay ay dib u rideen oo wiiga dhan ku qaadatay in golaha soo fariistaan xubnaha kulmiye waxa kale oo ay la soconaa in xukuumaddu ay mas'uulka ahayd isqabsigii iyo murankii faraha badnaa xeerkii diiwaangelinta golaha guurtida iyo wakiilada muddada badan ku soo dhaxdhaxo noqonay intaas oo dhan waxa ku cadeynaysaa in ay ahayd jaro iyo asbaabo fara badan oo ay u degayeen inay dib ugu dhigaan ayuu hakiin xildhibaan Nacnac waxa la leeyahay idinka dib u dhigay xukuumadda iyo xubnihii aqlabiyadda baarlamaanka oo iyaguna kulmiye ka soo jeeda dhowr konton baatihiin maxaa talayma annagu ilaahayna ogaa cadeedo kale ay u muuqatay waa tii la ogaa guurtan u baaskareynay guurta waa ku kaga daba yimi waa tii guurta soo celisay waa ku dib loo saxay iyaga ka daba tagay iyaga qalday oo marka intii guurtii waa la ogaa marxataan ku leenay ta kale commissionku waxba ku dhig karo sheekhan u sheegaya waxba ma bedel karo
commissionku mar haddii doorashooyinku dib u dhaceen waqti qaban kari waayeen commissionku waxay u soo qoriyaan warqad madaxweynuhu wuxuu gudbinaya guurtida shaqada leh aynay ku dhisayeen ku dhisay iskuma hayo laakiin taa wuxuu ku leeyahay Ibrahim Mahdi Buuba oo ogol leeyahay ilaa November intan ay soo qoreen commissionka doorashooyinka yiraahdeen 9 bilood ma ku ekaanaysa annagu gacanta kuma hayno commission ama jeena wareen feedo kuma hayno saacadaynaysa markaa inay kulmiye iyo xildhibaanadooda rabaan muddo kordhin cadaan ah oo aan waqti siyaado la garanayn mid kale madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay hadda inuu wada tashi qaran kala yeelanayo diyaar baan u nahay maxaa ka damaanada yaa noo damaanada wada tashi qaran waa tii la qaatay coalition government lama sameyn karo xeer baan ku soconaa xeerka hadduu baabooda waa kala tagay marka dawlad wadaagan lama sameyn karo guurtiyaana shaqada leh inay ku dhisay inaan ku dhiniyo xeerka timeline ka kale xamid baa dawladda ka soo jeeday waxa weeyaan horta hadii la is eedeeyo oo qoladana eeda leh waxba ma tarayso waxa weeyaan wada tashigu madaxweynuhu yiri aan ku dhameysana arrimaheena wada tashigaasi dawladda wadaagana waa lagu sameyn karayaa lama sameyn karo dawlad wadaagi meel ku qorantay dastuurkiina ka sheeg lama sameyn karo nin baa la doortay farta loo taagay isagoo waxay majority waqtigii la doortay 5 sanadood baad 5 sanadood waxay kaga egtay 26 Juun wixii ka dambeeya madaxweynuhu horta inta ku xirxiran adigu ka mid ka tahay waa inta jarka ka tuuraysa way hore wuxuu u jeclaa in doorashadu qabsanto laakiin idinka dhaafiyay oo suurto gali waayay imikana wada tashiga anagu ma aamini karayno sababtoo ah intii markii horeba dhaafisay ee ku xirxirnayd ayaa wali ku xiran waxa la yiraahdaa shaaru tagi qudam albayt waad arki doontaa indhahaaga shana markay guurtida loo soo gudbiyo guurtida faakim ka dhigmaysa dawlad mees ugu dambeyntii mid walba waxa siinaya 30 second maxaa xal ah waa wada ogolshiin waqtigan dheeraadka in la koriyo laakiin waxaad ka warar qabtaan in muddo dheer la koriyo maxaa xal xalku waxa weeyaan wixii aan laga maarmi karin in la yeelo waa la qabaa wixii aan laga maarmi karin hal yeelo laakiin kordhinta iyo waqtiga timeline-ka guurtidaana soo sameynaysa guurta loo dayad leeyahay haday wadan wax isku hayso waa berito anagu waxaan leenahay ciidkan arkayna ilkii ma soo jeedaan nimankan lama aamini karayo wada tashigooda lama aamini karayo baaqay ku baaqayna lama aamini karayo beesha caalamka iyo dawladaha jaarka ee Soomaaliland danaynaya iyo Soomaaliland wax garadkeedu hal isku ka yimaado hal soo dhaxgalo oo hal qabto nimanka jaarka aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda Soomaaliland doodaasna waxa dhex dhigay wariyaha BBC-da Ahmed Saciid Cige